2020 waan hubaynaa si weyn uga bogateen macluumaadkii iyo wararkii aynu kusoo gudbinay barnaamijyadeennii hore ee maanta kii subaxnimo iyo kii galabnimo labadaba. haddaba barnaamijka caawa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa khasaaraha duqeymihii ugu dambeeyay Israa'iil ay ka geysatay Gaza inta uu gaaray xaaladda oo faraha kasii baxaysa Gaza. mucaaradka Israa'iil oo mar kale ku celiyay madaxdoodu in ay markaa ka baqayaan dagaal sokeeye inuu u horseedo Netanyahu oo markaa Israa'iiliyiinta dhexdoodu ay nagta iska saari doonaan. mas-uuliyiin kala duwan oo xilal muhiima soo qabtay Israa'iil oo arrimo muhiima soo saaray iyo Netanyahu oo isaguna jawaab adag siiyay. xaaladda Israa'iil gudaheeda oo kacsan, mudaharaadyadii ka socday Qudus oo sii xoogaystay iyadoo booliiska iyo dadka mudaharaadaya ay gacmaha iskula tageen. xaaladahaas iyaguna wixii warar soo kordhay waan idiin soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Xuutiga iyo Trump xaalkoodu halka uu marayo, maxaa kasoo kordhay xaaladda badda cas iyana warbaan idinkaga hayaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan kusoo gudbin doonaa Suudaan oo madaxweynahooda Cabdi Fataax Burhaan uu maanta tegay madaxtooyada magaalada Khartoum islamarkaana ku dhawaaqay in Khartoum ay xor tahay oo laga saaray kooxdii dacmu sariic ee uu hogaaminayay Xameti. haddaba tafaasiil ku saabsan wararkaas ayaynu caawa barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay, habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waxaynu barnaamijkeena ku bilaabaynaa tirada dadka ku dhintay maanta kaliya magaalada Gaza waxay gaartay 26 qof, iyadoo sidoo kalena dhaawacyadu ay intaa ka badan yihiin. Israa'iil ayaa duqaysay koonfurta, waqooyiga iyo bartamaha Gaza. magaalada leeraado Jabaliya ama xaafadda leeraado Jabaliya ee ka tirsan marinka Gaza ayaa waxaa ku dhintay kaligeed 12 qof oo 5 ka mid ah ay caruur iyo hooyadood yihiin. haddaba xaaladda ayaa aad u sii cakirmaysa. wasiirka gaashaandhigga Israa'iilna waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan duqeymaha ay ku hayaan Gaza oo ay sii xoojin doonaan sida uu yiri. dhanka kale Netanyahu ayaa isaguna hay-adaha ammaanka la shiraya sidii loo sii dardargelin lahaa waxa loogu yeeray dagaalka ka socda Gaza oo markaa duqeymaha loo sii xoojin lahaa. haddaba xaaladda Gaza ayaa aad looga dayrinaya. hay-adaha samafalku waxay sheegayaan inay baqdin weyn ka qabaan in halkaa musiibo bani-aadamnimo ay ka dhacdo kadib markii Israa'iil ay diiday xitaa in gudaha loo geliyo Gaza waxyaabaha muhiimka ee daruuriyaadka ah ee bulshadu ay u baahan tahay sida caafimaadka waxa looga baahan yahay isbitaalada. haddaba xaalka Gaza waa halkaas ayuu marayaa maadaama caawa ay tahay habeenkii 27 ee bisha barakaysan ee Ramadaan. mar kale waxaan idin weydiisanayaa inaad dadka u ducaysaan. ilaahay uu dadka badbaadi mushkiladda iyo dhibaatada ay ku jiraan shacabka reer Gaza. ilaahu ka dulqaad. ilaahayow nabadgelyo iyo dowladnimo sii. adikuna intaa markaa ugu duceeya. waa mahadsantihiin. haddaba qodobka kale ee barnaamijkan u gudbayno wuxuu yahay inkastoo Israa'iil ay duqeymo iyo dhibaato u geysanayso reer Gaza, haddana midda kale dhexdeeda ayaa Ilaahay isku diraa la leeyahay.
nimankii mucaaradka ahaa Ben Gantz ninka la yiraahdo oo wasiirka dagaalka ahaa nin ahaan jiray abaanduulaha ciidamada niman soo noqday wasiiro iyo ra'iisul wasaareyaal ayaa waxay soo saareen war ay leeyihiin ninkan la yiraahdo Netanyahu wuxuu noo horseedayaa dagaal sokeeye oo waliba washiik oo lagu hooganayo waa isbaabi'in doonaa ilayhin dhawaan yahuudda dhexdeeda nagta iska saaraysa haddii ninkan waxyaabaha uu samaynayo aanu ka waantoobin ninkii Netanyahu isaguna maanta baarlamaanka markuu ka hadlayay kaniisadka wuxuu yiri mucaaradku iyaga buunbuuninaya waxan dimuqraadiyadda iyo waxa kale diidan yihiin marka sheekadooda ma lagu jiruule iyaguna waxay leeyihiin war ka joog haddaadan ka joogin waa isbaabi'in doonaa dagaal sokeeyaa noo horseedi doontaa waxyaabaha ugu weyn oo la isku haysto waxaa ka mid ah u hoggaansan garsoorka iyo ma u hoggaansamayaan la isku haya maxkamadda sare amarkeeda qaado iyo ma qaadanayo ninkan ma casili kartidii waa casilaya marka awood ayaa la isku hayaa macnaha qolada midigta iyo qolada bidixda is haysa nimankan mutadarrifiinta xag jirka la yiraahdo hadda xukunka haysta midigta la yiraahdaa nimankan kale ee Almaaniga iyo waxa kan la iska qasto wuxuudaas iska wata reer galbeedka fikradahooda watara waa nimankan mucaaradka ay shaariga la yiraahdo oo bidixda iyaguna marka waxay yiraahdeen si fiican la isu garaaci doonaa hadayna waxaan joojin inta Gaza iyo laga fakara annaga dhexdeena istirjo ciidanka kala bixi doonaa markaas nimankan waxay ku qeylinayaan waxay leeyihiin ciidanku arinka shaqo kuma laha ee siyaasadda la isku haystaa marka dambe waxa leeyahay ciidankay bahashu faraha la gali doontaa marka ugu dambeysana annaga dhexdeena arki doontaa anagoo nagta iska gureynay Falastiiniintu marka waxay leeyihiin Ilaahu naga soo dedeji nagta ayagoo iska guraya ma arki karnaa annagana culayska iyo dhibaatada naga yareeyaan halkaas marka hawshu baraysaa dhanka kale war muhiim ah ka soo baxay mudaharaadkii maantay barnaamijkii saakay inta daawatay inta aan daawano way daawan doonaan aan barnaamijyadeeda ku soo gudbiyay oo ahaa in ay sameeyeen dadka Baytlaahiya ee Gaza degan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan siyaasadda Hamas hadda marka waxa leeyahay kooxaha muqaawamada Gaza baaritaan ayay ku sameeyeen dadkii abaabulka waday iyo waxa la soo ogaaday in ay ka shaqeeyeen kooxda la yiraahdo Fatah oo maaratay Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas iyo ragiisa rag ku xiran inay hawsha abaabuleen oo macnaha Hamas meesha isaga baxdo inay ka shaqeeyaan si marka kooxda ay meesha u timaado oo waxaas laga shaqeeyo sidii Hamas loo saari lahaa marka hadda odayaashii Baytlaahiya iyo waxa kulmaya la leeyahay iyo maaratay iyo qaar kamid ah muqaawamada marka waxay yiraahdeen nimanka kanu dadna caraq soo qaaday oo macnaha dadkoodii la laayo iska jalbaysnaayeen dadna ujeedo iyo siyaasadee marka arinka ka wateen marka hadda waxa leeyahay arinka baaritaan wali ku socda cidii lagu helo inay marka shirqool iyo dhibaato la maagan tahay reer Gaza iyaguna marka tallaabo laga qaadi doonaa leeyahay waa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay iyaduna halkaas ayaan kaga gudbaynaa qodobkaas dhanka kale Xuutiyiinta ayaa waxa la sheegayaa in xaaladdu hadda ay degan tahay maanta aysan dhicin wax weerara ilaa hadda aan idila hadlayo oo wax weerara ayna dhicin laakiin weerarada Mareykanka uu qaado ayaa saacada kadib xilligii looga bartay ayay maaratay soo socdaan sida la leeyahay oo looga bartay hadaysan caawa baajinin laakiin Xuutigu maanta wax weerara oo ay qaadeen ma jiraan oo macnaha gantaale iyo diyaarado iyo xalaa ugu dambeysay laakiin maanta wax Israa'iil oo weerara oo dhanka Xuutiga uga yimid ma jiraan alle qadar xayeysiisa kadib waxaanu u gudbi doonaa arinta ku saabsan Suudaan oo warar cusub ay ka soo baxeen iyo nimankii Imaaraadku uu taageerayay oo afka ciida si fiican loogu daray Khartoumna laga qabsaday maanta waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxa loo hayaa war farxad leh waxa laga furay wadada Sodonka X Hotelkii Caamir macahad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxa jooga macallimiin aqoontoodu sareyso dibaddana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE-ga
shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. waxaa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha kasoo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iidaystaan. sidoo kale fursadan waxaa iyana ka faa'iidaysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso. haddaba isqoristu way socotaa, hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaano The View xaafadda Parklands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba iminka waxaa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo, waana qiimo dhimis 50%. kala xidhiir telefoonada ka balo markaska daarutaqwa qur-aanka kariimka, higaada, culumta shareecada, luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaada hab casri ah online. wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waxaynu maraynaa qodobadii ugu dambeeyey barnaamijka. waxaynu kaga hadlaynaa suudaan maanta oo Arbaco ah, meelihii ugu muhiimsanaa ay ku jireen kooxda dacmu sariic ayaa laga saaray. waxaa ka mid ah eraboorka magaalada Khartoum, xarunta sirdoonka ciidanka militariga iyo goobo fara badan. inkastoo weli meelo ka mid ah Khartoum la sheegayo in haraadigoodii uu ku jiro kooxda la dacmu sariic. ciidanka dowladda Suudaan ayaa maanta waxay sheegeen inay xor tahay magaalada Khartoum. waxaana madaxweynaha Suudaan ninka la yiraahdo Cabdifataax Burhaan uu maartay booqday xarunta madaxtooyada oo jimcihii la soo dhaafay laga saaray kooxda dacmu sariic oo haysatay halka muddo 2 sano ah. haddaba marka waxaa la sheegayaa dharbaaxyo aada u kulul ayaa ku dhacday nimankii dacmu sariic ama RSF-ta oo maaragtay uu hogaaminayay generaalkii Xamiti, imaaraadkuna ay taageerayeen. haddaba marka waxaa la sheegayaa dowladda Suudaan taageero fara badan ay heshay darteed ayay uga adkaatay kooxdan. Sacuudiga, Masar iyo Turkiga iyo dowlado badan ayaa taageero xoog leh ay ka heshaan leeyahay dowladda Suudaan, oo ay ku jirto xataa Ruushka oo hub siiyey markay dhawaan heshiis ay wada gaareen in saldhig Ruushka laga siinayo badda cas oo Suudaan dhankeeda ah. iyaguna markaa hub iyo wax walba ay siiyeen. Turkiga uu drones iyo wax walba soo siiyey. Sacuudiga iyo Masar iyana ay maaragtay iyaguna taageero u fidiyeen dowladda Suudaan. marka hadda waxay u muuqataa leeyahay nimankii inay jabeen oo maaragtay laga adkaaday. haraadigoodii ayaa waxaa laga baadigoobaya xaafadihii magaalada Khartoum. marka hadda xaalku marka sidaas ayuu yahay. warbixintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeennii caawa. fadlan ducada ha iloobanina. 27 caawa bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu ku jirnaa. ha loo duceeyo dadka Soomaalida iyo guud ahaan islaamka, gaar ahaan reer Gaza oo dhibaato culus ay ku jiraan. macnaha marka barnaamijyada la gareeyo shirgare intaan marka la kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.